السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأستند بلوءة يسند عصب 2021 محل جاء الشهي إن أتسميسو سنة كان عصب ما كببين نساء إن أتقارتو يول كذا هدي أي نقل هاي تعلين هرسرعه أو تيسان إيا الشقو هدوا سيئات أقارتو همي هذا وإن أت سميستا قرشيال كواس أو كعاوني كرا واحد رجينيسو سنة كان ما waxaad doonaysaa in aad ka dhabayso sanadkan qorshayaashaada adoo ku xaqiijinaya aqoontaada iyo khibradaada kuwaas oo bedeli kara horumarka noloshaada si aad u gaarto himiladaada waa in aad ku xirnaataa Allah jalla wa ala oo abuuray konkan samaawaadkana taagay bilaatiir dhulkana gogolay ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam waa inaan qaadanaa waa inaan ku xidhnaanaa eebe iyo rasuulkiisa maxamed sallallahu alayhi wasallam oo aad badisaa dikriga allah iyo salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay qaala tacaala ilaah qur-aankiisa wuxuu ku yidhi allah bidikrillahi tatma'innu alquluub allah bidikrillah tatma'innu alquluub taasoo ah إلهي وحده سبحانه وتعالى ذكر إلهي وحا حصليا وحا دجيا وحا قوجيا قلوبها وإن أن جوز دمبيتك كحوجنا قرآنك إلهي سبحانه وتعالى إيه السنة النبي صلى الله عليه وسلم مركز انت أردن نولش هذا ويقول سنيسا نولش هذا وحي أهانيسا من فرحت له إيه قلبي حسلا وإن أغلتي ماذا أخلاق إيو أنشح ونكسن سيدا أي أرني سما مح عربين العلم بلا أدب كالشجر بلا ثمر وما مح عربين وحيدهن العلم بلا أدب علم أن أدب للهين وجيت أن من الهين بدي أخرين تعشرة do more reading because محيالي reading أخرين make it you up your mind waxay kordhinaysaa waxay qurxinaysaa maskaxdaada all in all ku dadaal in aad ka faa'iidaysato waqtigaada qaaliga ah iskana dhaafto waxyaabaha faanka ah xanta fadhi ku dirirka iyo waxyaabaha micnada daran dhis noloshaada maxaa yeelay waxa tahay indhihii bulshada iyo muraayadii ay dadku daawanayaan oo bulshada ay daawanayaan هنقول شخص وقتي كل مياه شيء عن معنى لهين أما meaningless things أنت بدن وحا عن social media كما قلنا ودن هرمري سيدرونتا ودن كاسي وحا أكور مري وحا كلامها ودليريس أيا وحبرتي أو نقضي أخوي هنو إنجينيرو بروفيسورو وحا ترى دالكودا إيو دادكودا با إسكدا حشوتك إيو حيسو sida ay oranayso maamadan Englishka self period could not learn anymore self period could not learn anything but effortful one should learn anymore taasoo nafxi xiisad wax ma baran karto laakiin qofka dadaala ayaa wuxuu bartaa wax badan hal ku dhiga sanadkan waa build your country and develop your population dhis wadankaada dadkaadan horumari oo kor u qaad waxbarashada sida dhabta sanadkan cusub ee 2021ka ama 2021ka waxaan ku soo kordhinaynaa sida number 1 report writing oo reportada sida loo qoro insha Allah asxaabta nabiga sallallahu alayhi wasallam waan soo qaadan doonaa insha Allah intaan hayno insha Allah tan saddexaad waxaynu qaadanaa maamahay aad iyo aad ajiib gelinaya oo ka bilaabanaya from A up to Z insha Allah sidoo kale waxaa ku jiri doona sheekooyin jecel oo xiiso badan qaybta shanaad application forms for jobs waa codsiyada si loo dalbado shaqooyin markaad dalbanaysid hay-adaha UNICEF ama UN-ka ama hay'ad islaami markaad wax ugu dalbanaysid qaabka loo qori lahaa letter writing forms iyo qaababka loo qoro letterada types of business letters waxaan ka maqlay meesha noocyada waraaqaha codsida oo loo qoro ganacsiga waraaqaha ganacsiyada qaabka loo qoro qaabaja loo qoro ciidana iyo Somali National Curriculum
iyo waxaanu qaadanaa soo kale manhajkeenii soomaaliga qaranka ahaa, manhajkeena dowladda qaranka ay diyaarisay. meeshaa kama maqna wada sheekaysiyaal aad u xiiso badan iyo eryaal cusub iyo lagjaro iyo mawduucyo xiiso badan oo aad muhiim ku ah. all in all waxaan allah ka baryaynaa in uu na siiyo barwaaqo iyo nolol fiican oo intifaac badan leh. nolosha waxaa wanaagsan intifaac inay lahaato. waxaan aragnay dad badan oo barofesoro ah ama injineer ah howl aan haynin. taas waa qadarka rabbi waa. marka maxaa la rabaa markii saas kale aragto alxamdulilah in aragto oo shukriga ilaah baris. maxaa yeelay ilaah quraankiisa wuxuu ku dhahay la in shakartum la aziidannakum, oo macnaheedu yahay haddaad igu shukrisaan waa idin ziyaadinaya. marka waxaa wanaagsan mar walba kor ha fiirin ee fiiri hoos fiiri. waxaa la rabaa mar walba inaad ahaato qof aadaab leh, qof anshax fiican leh, qof fikraya, qof danihiisa fiirsanaya, qof mustaqbal fiican leh iyo nolol fiican oo intifaac badan leh iyo amni dheer, caafimaad iyo cibaado suuban. aamiin aamiin. halkaasaan kusoo gabagabeeyey. assalaamu calaykum